السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركلة السود وهذا أدي هذا ومهد سنتهين مقال كان وحرب إن ندخل وذاقه ننكي عدان كاه بشي اللي حاد برتمه دي حل باندي كتر سنة برلمان كقبل كمينيسوتا يسي جديد دلي سيدو كلنا داوعي سنتر يولي بحاس كيسا دعوة فدرال أهن هوري لوغسو أوغي أي حدا وحا حير بيكتي أي كسو أوغين سيداد دعوادود أو حير قبلة هذا دعوادها سمحي كليهين muxuuse ku kala mutaysan karaa labada dacwadood midda federaalka iyo midda xeerka gobolka ee hadda lagu soo oogay ayaan idin la wadaagayaa wasiirka gaadiidka dawladda Mareykanka oo sheegay in ka badan 1500 oo wadayaasha gawaarida waaweyn ee taraagyada ah laga joojiyay shaqadii wadista taraagyada sababo la xiriira luqadda Ingiriiskana waan idin la wadaagayaa iyo Trump oo sheegay in madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky qaar ka mid ah madaxda Yurub iyo waliba xogayaha guud ee NATO uu warbixin ka siiyay kulankii shalay taariikhiga ahaa uu kula yeeshay magaalada Anchorage ee gobolka Alaska madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin oo muhiimadda lagu saaray joojinta dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine waan idin la wadaagaya qoraalka bartiisa True Social ku soo qoray balse marka hore soo dhawaada ninkii cadaanka ahaa ee magaciisa ahaa Vance Bolter oo 58 jir ahaa ninkaasi oo 14 bishii 6 ee June ee sanadkan dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Minnesota gaar ahaan aqalka wakiilada iyo saygeeda oo ah Melissa Horman iyo Mark isla markaana gurigooda ku dhaawacay Senator John Hoffman iyo xaaskiisa isla markaana isku dayay inuu dilo waliba gabadhooda yar oo markaasi la joogtay ayaa hadda waxa lagu soo oogay dacwado heer gobol ah markii hore waxaan ogeyn in dacwado heer federaal ah lagu soo oogay hadda 8 dacwadood oo kala duwan oo waxa lagu soo oogay heer gobol ah waxa ku dhawaaqay arintaasi shir jaraa'id markii ay qabatay xeerlaaliyaha degmada Hennepin Mary Moriarty waxana ay sheegtay in ay doonayaan in marka ay soo gabagaboobaan dacwadaha federaalka ee lagu haysto Vance Bolter in dacwadahan heerka gobol ah uu wajaho ninkan waxaan ognahay markii dilalkaasi ama toogashadaasi uu geystay inuu cararay 48 saacadood ka badan markii la raadinayay waliba raadintii ugu ballaarneed ee taariikhda gobolka Minnesota qof la raadiyay ayaa la raadiyay waatii laga soo helay meel beeraley ah oo u dhow gurigiisa oo ku yaala Green Isle ee gobolka Minnesota marka ninkan Vance Bolter hadda xabsi federaal ah ayuu ku jiraa laakiin dacwadahan hadda lagu soo oogay waa dacwado heer gobol ah hadaba 8 dacwadood ee lagu soo oogay ayaa waxa ay kala yihiin dil heerkiisu yahay midka koobaad oo waliba la soo qorsheeyay oo ku dilay xildhibaanad Melissa Horman iyo waliba saygeedii Mark taasi waa laba dacwadood oo ah dambi heerkiisu yahay midka koobaad isla markaana ah mid waliba la soo abaabulay oo loo soo diyaar garoobay 4 dacwadood oo waxa jirta isku day dil isaguna heerkiisu yahay midka koobaad ah waxana yihiin 4taasi isku day dil 3 kamid ah waxa ay quseeyaan isku daygii dil oo isku dayay inuu dilo Senator John Hoffman iyo waliba xaaskiisa Yvette oo dhaawacmay iyo gabadhooda Hope oo la joogto oo waalidiintooda ay isku kortuureen si ay gabadhooda uga badbaadiyaan in risaastaasi ay haleesho 3 dambi oo isku day dil ah oo midkiiba yahay heerka koobaad oo waliba dambi la soo abaabulay ah dil la soo abaabulay ayaa lagu soo oogay marka waxa la ogaaday in xildhibaano kalena gurigooda isla habeenkaasi uu tagay uu doonayay in uu dilo xildhibaanadaasi waxa kamid ah xildhibaanada la yiraahdo Kristen Bahner oo gurigeeda xilligaasi ka maqnayd oo vacation ku maqnayd waxana dacwadoogaha degmada Hennepin Mary Moriarty ay sheegtay in ninkan markii uu tagay xildhibaanadan gurigeeda in albaabka uu qaraacay ring bellka isla markaana muddo 2 daqiiqo uu garaacay kadibna uu ku qayliyay waa booliis isla markaana nalka uu watay waliba albaabka uu ku ifiyay iskuna dayay xitaa in uu furo albaabka laakiin uu u furmi waayay marka waxa jirtay labadan xildhibaan ama senatarkan iyo xildhibaanadan gurigooda uu tago kuwana dilay kuwana dhaawacay marka laga soo tago 2 xildhibaan oo kale in isla habeenkaasi gurigooda uu tagay ninkan nin qorshe wata ayuu ahaa marka waxa isku day dil marka oo heerkiisu yahay midka koobaad xildhibaanadaasi waa lagu soo eegay dambiga kale ee toddobaad waxa uu yahay in uu sidoo kalena iska dhigay police isagoo aan police ahayn ninkan sidii booliska u soo libtay ninkan sidii booliska waa kii u soo libistay
koofi soo gashtay, maskaraati soo gashtay, baajkii booliska watay, flashlightkii watay, hub kala duwanna kuwana gaarigiisa ayaa laga helay, kuwana markuu dilka ku geystay waa kii kala furfuray oo sidoo kalena la soo helay. Marka dacwadda ugu dambeysa waxay tahay xitaa xayawaanka meeshan waa loo doodaya. Eygii ay lahaayeen xildhibaanka uu dilay iyo saygeeda Melissa Horman iyo Mark, eygaasi Gilbert ayaa la oran jiray. Markii goorba uu ku qayliyay markaas kadib waa uu toogtay, eygii waa uu curyaamay, markii dambana waa la israaciyay oo waa la dilay. Marka meeshan xayawaanku mararka qaar marka uu duqoobo, marka dhaawac halis uusan kasoo kabsan karin horey ayay isku sii dhaafiyaan oo waa ay dilaan. Marka xeraalyaha degmada Hennepin waxay sheegtay in si ula kaca eygaasi uu u toogtay. Marka waxaa lagu soo eedeeyay xaasidnimo uu xayawaan kula kacay. Marka waa dambi felony ah, iyaduna sidoo kale dambiyada 8 ah ee lagu soo oogay ayay ku jirtaa. Marka dacwadaha federaalka oo horey loogu soo oogay Vance Bolter waxay kala ahaayeen 2 dambi oo ah dil, 2 dambi oo ah ilaalaysi dadka uu dilayo inuu ilaalaystay, iyo 2 dambi oo ah hub inuu haystay uu dil ku geystay ayaa lagu soo oogay. Marka dacwadaha federaalka haddii lagu helo, wasiirka cadaaladda ayay ka go'daa, laakiin waxa uu ku mutaysan karaa dil in la dilo. Marka dacwadahan kale oo heerka gobol ahna waxa uu ku mutaysan karaa haddii lagu helo xabsi daa'in aan weliba cafis lahayn. Marka wasiirka cadaaladda ayay ka go'daa ninkan in xukun dil ah lagu fuliyo haddii dacwadaha federaalka ah lagu helo, laakiin waxaa laga yaabaa inaan dil aan lagu xukumin oo lagu xukumo xabsi daa'in waxaa lamid ah. Marka waxay sheegtay xeerlaaliyaha degmada Hennepin marka maxkamadaha federaalka ama dacwadaha federaalka ay ku socdo ay soo gabagaboobaan kadib in aan u soo jeesan doono ayay tiri kuwan heerka gobola ee ninkan lagu soo eedeeyay. Haddana xabsi federaal ayuu ku jiraa. Waxaan filayaa maxkamadiisa ugu horeysa hadda inay tahay bisha November 11 ee dhammaadka sanadka. waa tahay waxaan ognahay bishii June ee 25keedii in uu dhaqan galay sharcigii luqadda Ingiriiska ee qabanaya wadayaasha gawaarida waaweyn ee taraagyada ah oo qofkii luqadda aan ku hadli karin, aqrin karin, calaamadaha wadooyinka ku yaala aan fahmi karin inuusan u qalmin in leesinkan CDL-ka ah ee class A-ga uu haysto isla markaana gaarigaasi taraaga uu kaxeeyo. Haddaba waxa ay dawladdu bilowday markaasi marka dadka luqadda Ingiriiska aan ku hadli karin oo intooda badan Mexico ka yimid in aan loo ogolaanin in Mareykanka gawaarida taraagyada ay ku dhex wadaan. Haddaba wasiirka gaadiidka ee dawladda Mareykanka ninka la yiraahdo Sean Duffy ayaa waxa uu bartiisa X uu ku soo qoray qoraaladan kala duwan oo leeyahay waxaan u mahadcelinayaa waaxda dhinacaasi u qaabilsan dawladda oo 1500 oo darawallo taraagi ah oo ku guuldareystay in luqadda qaranka oo Trump uu aqoonsaday bishii February in Englishku uu yahay luqadda rasmiga ah ee Mareykanka looga hadlo in ay ku hadli waayeen sidaa darteedna laga joojiyay in gawaarida taraagyada ah ay wadaan. Marka wuxuu yiri taraagyada aan communication aan ku sameyn karin ayuu yiri aan la hadli karin ciidamada markay istaajiyaan aan calaamadahana aan aqrin karin waxa ay qatar ku yihiin badqabka dadka Mareykanka. Sidaa darteed ma ahan in ay wax ganacsiya ay sameeyaan. Sidaa darteed wuxuu yiri wadooyinkeena waa in laga mamnuuca full stop. waxana uu sheegay in ay jiraan wali shaqooyin badan oo loo baahan yahay in la qabto. Arrintan waa bilow ayuu yiri make tracking safe again ayuu yiri. Marka waa sheekadii Trump make America great again. Asaguna waxa uu leeyahay trackingka ama taraagyada waa inay noqdaan kuwa ammaan ah. Sidoo kale waxa jirta qoraalkan kale oo isaguna soo qoray oo sheegay ilaa iyo markii uu dhaqan galay sharciga luqadda Ingiriiska oo looga baahnaa in taraagyadu ay ku hadlaan luqadda Ingiriiska in gobolada anagoo kaashanayna in ka badan 1500 oo aan u qalmin inay darawallo noqdaan in laga joojiyay shaqada. Taasina waxa uu yiri waa natiijada loo baahan yahay. Marka waxa uu yiri haddii aadan aqrin karin luqadda Ingiriiska oo aadan ku hadli karin luqadda qaranka oo ah English ma ahan inaan ku ogolaano inaad qatar geliso dadka shacabka ah ee wadooyinka kula isticmaalayo. America first ayuu yiri. Marka hore muhiimadda koobaad Mareykanka ayaan siinaynaa, safety first, badqabkana marka koobaad ayaan siinaynaa. Sida muuqata marka dawladdu wali waxay wadaa inay la dagaalanto dadka aan luqadda Ingiriiska garanaynin ee taraagyada wada sida wasiirka gaadiidka uu haddaba uu sheegay. Ugu dambeyntii shalay waxaan ogeeyay Trump iyo madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin inay ku kulmeen magaalada Anchorage gobolka Alaska 2 saac iyo bar kulan qaatay kadib muhiimadii shirka oo loo yimidna aan wax guul weyn laga gaarin oo ahayd joojinta xabad joojin la kala dhaxdhigo Ruushka iyo Ukraine iyo sidii dagaalkaasi gabi ahaanba loo joojin lahaa. Ruushku
dhul fara badan ayuu Ukraine ka qabsaday. Trump sida uu sheegayna dhulkaasi intooda badan soo ma celin doonaan. Ukraine waa ay diidantahay, waxay leedahay dhulkeena ah kama tagayno. Sida hadda aad qariiradan aad ka aragtaan, dhul fara badan ayaa Ukraine laga haystaa oo Ruushka uu ka qabsaday. Marka Trump waxaan ognahay madaxweynaha Ukraine shirkaas inaan laga soo qayb gelin, Volodymyr Zelensky, isla markaana Trump waxa uu yiri waan la hadli doonaa marka uu shirka soo dhamaado. Hadda Trump marka qoraalkan iyo bartiisa Truth Social ku soo qoray waxa uu leeyahay waxa uu ahaa shirkii aan shalay la yeeshay Putin mid oo guul ah oo Alaska ku soo dhamaaday. Waxa uu sheegay sidoo kale Vladimir Putin in uu shirkii uu la yeeshay uu si wanaagsan u dhacay, isla markaana xilli dambe oo xalay ah waxa uu yiri waxaan qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky iyo qaar ka mid ah madaxda midowga Yurub iyo sidoo kale ninka sida aadka loo qadariyo xogayaha guud ee NATO. Trump sababta uu sidaas u leeyahay waxay tahay shirkii ugu dambeeyay ee NATO ayaa ninkan madaxda ka ah NATO waxa uu Trump ugu yeeray daddy amaba aabo, iyadoo marka arrimo laga hadlayay ayaa waxa uu yiri haddii ilmuhu ay daro sameeyaan waa inay aabaha ka baqaan. Marka sidaa darteed Trump in la faaniyo waa uu jecel yahay. Marka ninkaas maadaama daddy ugu yeeray hadda isaguna waa uu amaanaya, wuxuu leeyahay ninka sida aadka loo qadariyo xogayaha guud ee NATO ah. Marka waxa uu yiri waa inaga go'an tahay ayuu yiri in aan dagaalkan qaabtarada ah aan soo gabagabayno oo u dhaxeeyo Ruushka iyo waliba Ukraine. Waxaana uu sheegay si toosan waxaan u baahanahay in heshiis nabadeed loo aado oo dagaalkan lagu soo gabagabaynayo. Waxa uu yiri ma doonayno heshiis xabad joojin, macnaha xabad joojin mar inta la bilaabo waxa uu yiri taasi oo inta badanba aan la dhaqan gelin oo xabadaasi aysan noqon mid sii jirta. Sidaa darteed madaxweyne Zelensky waxa uu imaan doonaa caasimadda DC Isniinta, marka Isniinta ayuu imaan doonaa oo kulan ayuu la yeelan doonaa inagoo og 28 February sidii loogu bahdilay aqalka cad ama Oval Office-ka markii uu yimid oo la yiri warnii waxba ma haysatid, dagaal nuclear ayaa rabtaa inaad bilowdo, Ruushkana iska ma celin kartid, marka waa inaad nabad qaadataa. sidaa darteed hadda mar kale Isniinta ayuu imaanayaa caasimadda DC. Trump ayuu sidoo kale uu la kulmi doonaa. waxaana uu sheegay in ay arrin loo baahan yahay yiri Trump arrintaas aan u malaynayo inay shaqayn doonto. sidaa darteed waxa aan mar kale aan ballan la dhigan doona yiri madaxweynaha Ruushka Putin oo laga yaabo in malaayiin qof noloshooda aan badbaadino. marka waan idinka mahad celinayaa sida arrintan aad dareenkiina aad u siinaysaan. inta badan qoraaladii sidaas ayuu ku soo gabagabeeyay. marka waxa uu leeyahay madaxweynaha Zelensky Isniinta ayuu imaan doonaa, galinka dambe ayaan ku kulmi doonaa aqalka cad oo aan arrintan ka wada hadli doonaa. waan ognahay in Zelensky aan shirkii shalay laga soo qayb gelin oo qas muhiim ay ahayd in laga soo qayb geliyo, laakiin Putin ma ogola inuu hor fadhiisto madaxweynaha Ukraine. marka waxa laga yaabaa marka kulanka dambe in la qabanqaabiyo in labada dhinac la iska hor keeno ay wada hadlaan, isla markaana heshiis laga gaaro la soo gabagabeeyo dagaalkan 3 sano iyo bar socday oo Ruushka iyo Ukraine u dhaxay. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.